magaalada muqdisho dad badan waxay isku dhex wadaan matalaad iyo maqaam maalin dhaweyto matalaad way yeelato 13 xildhibaan ayaa loo ansixiyey oo cod aqlabiyad ah helay had marka maxay tahay farqiga u dhaxeeya matalaad iyo maqaam way fududahay arintaas matalaad waxa waaye 3 million and half oo dad ah xildhibaankii matali lahaay oo u hadli lahaay waa 13 hadda la magac dhabay waa sidaas waaye laakiin marka ay noqoto maqaam macnaheedu waxa waa ninka booroma ka yimid xamar dabaqay ka dhisanayo si sharaf leh ugu noolaana cashuurta wax ka bixina uu ku noolaana waa lagu soo dhaweynaa uu ka guursana lama ficli karo lama leexin karo maxkamadda gobolka banaadir hadduu tago cadaalada wax loo qaada daas maqaam in dadku ay noqdaan Soomaali markay xamar timaad dad wada siman inay noqdaan matalaadu laakiin maxaa waaye dadkii aad xamar ugu timid qofkii siyaasadda ku matali lahaay waa macnaheedu waa tahay ugu dambeyntii sheeg ustaad Cali Sow gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka xalay wuu hadlay wuxuuna sheegay inaysan 13 xubnood ee golaha aqalka sare loo ansixiyay gobolka Banaadir aysan ku filneen ama aysan aqli gal ahayn sidoo asay sheegay adigu see u aragtaa hadalkaas gudoomiyaha anu aragtida waa soo dhaweynaya waana hadalkii hadda aan ka hadlay oo hore ay qayb ka tahay waxaan aaminsanahay gobolka Banaadir inaysan meel ka qoynin ama aysan maaragtay barcabir u noqon karin 13 xildhibaan haddii lagu dari kara 5 kale xataa maaragtay waa soo dhaweyn lahayn si maaragtay dadka deegaanku ay wax u kala gaaraan ugu yaraan ay u kala gaaraan waana ka mahad celinaynaa gudoomiye ku-xigeenka hadduu go'aan ka qaatay waana kaalin uu leeyahay maanta waqtiga aan joogno kaalin siyaasadeed uu leeyahay waxaan ka rajaynaynaa inuu keeno xubno dheeriya waan ka rajaynaynaa waana ku raacsanahay waana ku taageeraynaa arrintaas aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay ustaad Cali Sow waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga aadna siisay daawadayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni madasha siyaasiga oo toddobaadkan aad ka daawanaysaan Som News TV barnaamijka waxaa idin daadihinay anigoo ah Yuusuf Cabdi Xaaji Goobdoon waxaana marti u ah saan hore idinku sheegaba ustaad Axmed Caraaye Cumar oo loo yaqaan Cali Sow kana mid ah macallimiinta ama barayaasha Soomaaliyeed ee wax ka dhiga jaamacadaha dalkeena sidoo kalena ah cilmi baare Soomaaliyeed ustaad aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa adiga ayaa mudan shukran waa ku dhawaad